kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa TV-ga risaalo waan idinkaga soo gudbinayo barnaamijka ciyaaraha oo aan inta badan ku falanqeeyo waxyaabaha isboortiga ugu waaweyn ee waqtigaasi jira waxaan ku soo qaadanaa xubinteena football news oo wararka kooxaha wargeysyada iyo waxyaabaha taagan aan ku soo gudbiyo falanqeyn ayaan si gaar ah u sameynaa oo waxyaabaha waaweyn ee jiraan ku dul istaagno waxaan si gaar ah u dul istaagi doonaa Barcelona kadib markii uu iscazilay ninka lagu magacaabo Bertameya Juventus ay ka badiyeen ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen markii ugu horeysay Messi oo qoslaya la arkay jamaahiirta ayaa wax badan aamin la hadaba siday kooxdu u muuqato ma la dhihi karaa Barcelona rasmi ah soo laabatay waxyaabaha aan ka baranay kulankii Juventus ay la ciyaareen aan eegi doona sidoo kalena wararkii ugu dambeeyay ciyaarahan soo qaadan doona oo wargeysyadu ay qorayeen markii ugu horeysay waadna soo booqatay hadii ay taana waxaan ka codsanaynaa in aad like iyo follow dhahdo page-keena isla markaana muuqaalkan aad u share garayso saaxiibada kale jecel ciyaaraha si ay markaasi noogu soo biiraan dhanka farsamada iyo gaamiraduna waa Maxamed Saciid aan ku bilaabo daawadayaal falanqeynteena xalay kulan xiiso badan oo ka tirsanaa tartanka Europe ee UEFA Champions League waxa isku arkay kooxaha Juventus iyo Barcelona kulankan wuxuu yimid saacado kadib markii uu iscazilay madaxweynihii muranka dhaliyay ee kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Joseph Maria Bertameya kooxda Barcelona ayaana xalay muujisay inay dhibaatada ka baxday isla markaana ay si calool fiyoobiyo u tusin karaan kubado qurux badan taageerayaasha hore ayaana loo soo jeediyay Barcelona inay wax waliba markaas si ula kacay u sameynayaan ciyaartoyda maadaama aysan ku qanacsanayn nidaamka uu wax ku maamulayo madaxweynahooda Joseph Maria Bertameya ayaa meesha ka baxay madaxtinimadiisii Barcelona ayuu iska cazilay iyadoo oo Bulgarana ay mar kale kubad wanaagsan xalay ku soo bandhigtay Talyaaniga maya taageerayaasha Barcelona maryoonayaan ee kooxdooda ayaa wadada saxda ah u muuqatay inay ku soo laabatay kadib qaab ciyaareed ilqabad laha oo ay ka muujiyeen kulankii xalay Juventus ay ka badiyeen maalmihii la soo dhaafana waxa aad markaas u soo badanayay dhibaatada ka jirta gegida Camp Nou oo ciyaartoyda iyo maamulka u dhaxaysa laakiin laga soo bilaabo guuldaradii Il Clasico ee Sabtidii waxa muranka uu sii noqday mid sii daba dheeraaday waxaana lagu cadaadiyay ninka lagu magacaabo Bertameya inuu iscazilo oo uu shaqada ka tago taasi ugu dambeyn dhacday waxaana kulankii ugu horeeyay ay ciyaareen saacado kadib iscasilaadiisa ay 2 gool iyo waxba xalay Barcelona kaga badisay Juventus xidiga reer Argentine ayaa markaas u muuqday mid dhoola cadeynaya muddo kadib ayaana dhoola cadeyntiisa taageerayaashu ay arkayeen iyada oo jamaahiirtuna si maskiixiyana kooxdoodu u aamineen inay wadada saxda ku soo laabatay laacibka Barcelona ninka lagu magacaabo Lionel Messi ayaana gool rigooraha dhaliyay iyadoo Ousmane Dembélé goolka hore waqti hore kooxdiisu lugta midig ugu sayeexay si kastaba ha noqotee ciyaartan awood ahaan iyo sida ay labada kooxood ahaayeen markaynu eegno waxyaabahan ka baranay Barcelona bilowgii ciyaarta waxay muujisay awoodeedii kubadaysashada iyadoo ciyaartoydu si isku dhow kubadaha ay u ciyaarayeen xidiga Lionel Messi ayaana kubad corner dhanka bidix uu ka soo tuuray waxa uu si khiyaano leh ugu baasay ciyaaryahankii hore ee Juventus Miralem Pjanic kaasi oo darbo xoogan indhaha ka galiyay golaha kooxda Juventus ninka lagu magacaabo Sane ayaana kubadaasi si dirqiya saacabadiisa ugu saaray mar kale ayaysa weerar celis degdeg kubadii noqotay waxaana loo dhaxdusiyay xidiga lagu magacaabo Anthony Griezmann kaasi oo darbo xoogan ka fujiyay lugtiisa bidix laakiin waxay qabsatay birta waxaana Juventus markaas wixii ka dambeeyay ay isdhiibtay ciyaartana ay u muuqatay dhanka Barcelona mid wajahday inkastoo 3 gool oo dhamaantood waxba tarin uu dhaliyay xidiga Alvaro Morata oo dhex taagnaa offside ama garab dhaaf haddana kooxdiisu wax gool looma ansixino 3 garab dhaaf ay noqdeen ciyaarta oo sidaas ku socota xidiga lagu magacaabo Ousmane Dembélé ayaa dhanka bidix kubad si qurux badan ugu soo gooyay lugtiisa midig darbe xoogan qabadsiiyay laakiin mid kamid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Juventus ay kubadaasi ku sii dhacday taasi oo keentay inay cuskato shabaqada wajaha Sasni uu waardiyaha ka ahaa qaybta hore ayaa sidaas loogu kalnastay dimarkii la soo laabtay Juventus halkeeda ayaa cadaadiska laga sii saarayay iyada oo Lionel Messi rigooro uu dhaliyay kooxdu 2 gool iyo waxba hogaanka loogu qabtay si kastaba ha noqotay guud ahaan ciyaarta sidaas ayay ku dhamaatay ninka lagu magacaabo Ronaldo Koeman waa guushiisii ugu horeysay ee tartan koox weyn uu la ciyaaray ka gaaro hore tijaabadiisii ugu weyneed Real Madrid ay ugu soo guul dareysay laakiin haatan waxa uu guul ka gaaray kooxda Juventus
tijaabadiisii ugu weyneed ee tartanka Champions League xaaladan haatan ay ku burotay Barcelona bilowga horyaalka Champions League ama tartanka Europe waxay muujinaysaa in boqolkiiba boqol ay tahay oo kulankii horena gool 5 iyo waxba waa 5 gool ay soo gaareen xalayna 2 gool iyo waxbay ku badiyeen natiijahan 2-7 gool dhalinyaro gool laga dhaliyay difaacashadooda muxuu xitaa ku darso goolahayoodii Marc Andre ter Stegen maqan marka xaalad Barcelona aan ku dari karno kooxihii hore aan miisaanka saarnay tartanka Champions League Bayern Munich ay ugu horeysa ayaan ku dari karnaa Barcelona awood ay muujinayso marka la eego marba hadii bartamaye meesha uu ka baxana wax badan ay isbedeli kara xalay aragti ahaan Barcelona anigu waxaan ka bartay inay sidii hore loo yaqiinay u ciyaareysay Barcelona oo sidaan u ciyaareysay maalmihii la soo dhaafay maanan arag waxaana soo baxaysa dhaliish ah in ciyaartoydu marka aysan ku qanacsanayn tababaraha ama maamulka waqtigaasi kooxda hogaaminaya ay iyaguna isbedel ciyaareed ay sameyn karaan oo niyad ay ku ciyaari karaan oo aysan isku xirnaan muujinaynin oo mararka qaar ay dhici karto qaab ciyaartoyda aan taageerayaasha qancinayn u ciyaaraan taasoo ay kaga gol leeyihiin in maamulkan meesha uu ka baxo ha noqdo tababaraha ama qofka kooxda mas'uulka ugu sareeya inuu meesha ka baxo marka xalay inay sidaasi Barcelona u ciyaari jireen ciyaartoydu way muuqatay xitaa Lionel Messi xalay dhowla cadeyntiisa markaad eegto sidoo uu ciyaaray siday daacad kaga eed kubadaha waxaad moodaa Messi la yaqiinay inuu ahaa marka xalay waxaan aragnay waxa ka dhalan kara Messi inuu qandaraaska kooxda uu saxiixo qandaraas cusub kooxdana noloshiisa uu hibeeyo waqti dheerna uu la sii joogo sababtoo waa hogaamiyaha kooxdan waa lama taabtaanka kooxda wuxuu rabaan haatan suurto galay sababtoo bartamaya meesha ka baxay isagaana kooxda u haray markasta oo sidaas Messi loo sameeyay kooxda qandaraas cusub uu ku abaal marinay tusaale ahaan bal fiir macallimiinta is qabteen Luis Enrique kamid ah markuu baxay heshiis cusub uu siixay dhowr macallin sidaas oo kale iyo ciyaartoy is qabteen kooxda looga diray tartiisa jirta ama ciyaartoy isagu uu diiday in la keeno uusan la suurto galin iyo raga is qabteen oo xitaa agaasimihii kooxda ugu dambeeyay Eric Abidal uu kamid ahaa marka hadiiba xulafadii ka soo horjeeda meesha ay ka baxday Messi waxaad moodaa in haatan uu heli karo fursad kooxda heshiis cusub ugu siiyo marka Barcelona xalay waxaan ka barano waa inay Barcelona la yaqaan soo noqotay Messi qandaraas cusub kooxda uu siixi karo farxadda ka muuqatay marka la eego waxaan kaloo baranay Barcelona inay ku xumaas u ciyaari jirtay kulamadii hore oo bartameeya laga soo horjeeday kooxdan inuu sii joogo ciyaartoyda intooda ugu badan ay ka soo horjeedaan xalantaas ay dhacday arimahaas Barcelona waxaan ka baranay kulankoodii xal markaan ka gudbana Manchester United qudheedu waxaan ka baranay inay tahay tartamayaal rasmi oo lagu dari karo xilli ciyaareedkan kooxaha ku dagaalami doona tartanka Champions League sababtoo ah inaad wada garaacdo laba kooxood oo adag oo aad ku group tahay waxay muujinaysaa awoodaada sababtoo ah xalay 5 gool inay kaga badiyaan kooxdii semifinaliska tartankan iska xaadirisay sanadkii hore ama xilli ciyaareedkii hore ee RB Leipzig oo lagu tilmaamo koox madax adag markay kooxaha waaweyn la ciyaarayso haddana in 5 gool looga badiyo awood gaar ah runtii muujinaysaa sidoo kale Paris Saint-Germain in Paris ay ku soo garaacaan awood kale oo dheeri muujisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United marka awoodahan haatan iyo siday kooxda Manchester u ciyaartay markaan wax ku qiimeeyno anigu waxaan isleeyahay Manchester ugu jiraan kooxaad caday ka mid noqotay isbedelayna sameysay laakiin Solskjaer macalinka la yiraahdo xulashada ciyaartoydu wali aad ugu dhiban markaad eegto in xalay Cavani iyo Rashford iyo ciyaartoy noocaas garoonka aysan fursad fiican oo bilow aysan helin waxay muujinaysaa wali macalinka inuusan u bislayn kooxda inuu akhriyo kubadaha ciyaarayso hadii isbedelada dhanka kooxdu ay sameeyaan ciyaartoydu haatan kubada caday u muuqdaan oo si wanaagsan u ciyaaray laakiin hadii dhanka macalinka isbedel uusan ka imaanin xalay Van de Beek oo kale fursad uu helay hadii sidaas oo kale ciyaartoydu uusan isku shaandhayn u sameeynin oo qaarkood kaliya uu garoonka ku soo wado caqabada dhixi doonta runtii kooxduna sidaan quruxda badan kuma sii jiri karto warka kale Manchester ugu weyn maanta waxa uu yahay in xidigooda Alex Telles laga helay xanuunka coronavirus Alex Telles waxa uu kamid yahay difaacyada kooxdan ugu muhiimsan xagaagan habeenka ugu dambeeyay suuqa ku soo biiray laakiin xalay markii ciyaartu ay soo gabagabooday tababar Ole Gunnar Solskjaer xaqiijiyay in xidigu uu qabo coronavirus karantiin uu ku jiro laakiin wax calaamadaha uu san lahayn wanaagna uu dareemayo dhakhtar uu ku soo laaban doono sidoo kale waxa uu xaqiijiyay inuu seegi doono ciyaarta Arsenal ay la ciyaari doonaan isbuuca soo socda marka coronavirus ku dhacay ninkaas la yiraahdo Alex Telles Liverpool war wanaagsan ay dhanka dhaawacyada ka heshay wararka dhankooda hadii aan isha mariyo ciyaaryahan Fabinho waxa la yiri dhaawaciisa wuxuu noqon doonaa mid sidii la filayay ka fududaado oo kadib fasaxa caalamiga ee November bagroomadu uu ku soo laaban doonaa baaritaankii ugu dambeeyay ee shalay la marsiiyay waxa uu xaqiijiyay xidiga
in xanuunkiisa ama dhaawaciisu uu yahay kaliya 2 jeex laakiin uusan ahayn 3 jeex haddii dhibaatadiisu ay gaari lahayd waxa la yiri ugu yaraan 6 bilood oo garoomada ka maqnaan lahayd taasina dhibaatay ku noqon lahayd macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp Fabinho hadda waxa uu buuxinayaa booska uu ka maqan yahay Virgil van Dijk oo muddo dheer garoomada ka maqnaan doona kadib dhaawacii ka soo gaaray kulankii Merseyside derby sidoo kale xidiga lagu magacaabo Marcus Thuram maanta la xiriirinaya kooxda Liverpool weeryahankan Borussia Mönchengladbach baa ka tirsan 2 gool oo ka dhaliyay Real Madrid taas soo jiidatay indhaha kooxaha waaweyn ee Yurub ka tirsan mar waxay leedahay xidigan weerar ka ciyaar oo dhalay halyeegii hore Francisco Lilian Thuram waxa indhaha ku hayay tababaraha kooxda Liverpool ninka lagu magacaabo Jurgen Klopp Benzema xaalad fadeexadu lugaha kula jira waxaana kaamirooyinka ay soo muujinay isagoo xamanaya wiilka da'da yar ee kooxda Real Madrid Fasinha Junior ninka lagu magacaabo waliba waxa la xamanay ninka isku wadanka yihiin ee Mandi kadib arintaas markay soo baxday saxaafadu banaanka ay keentay kaamirooyinka qarsoon ay qabteen mar kale si fadeexadu u hadlay xidig waxaana uu yiri markay eeyuhu ay qaylinayaan nambarka 9aadna waa iska shaqeystaa yani dib uma fiiriyo qaylada yareyso kooda yani marka warkan hadii la sii fasiro meelo kale uu cagaha la geli doona fadeexada marka wiilka ninka la yiraahdo Francisco u dhashay Benzema uu ku furmi doonto aad u weynaan doonta Fasinha Junior waa daayir aad mustaqbal ugu leh kooxda Real Madrid anfici doona markii in sidaas uu nijibiyo ciyaartooyda daad yarta ee kooxda kulay uma dul qaadan doonaan jamaahiirta kooxda maamulka iyo macallimiintana waxaan rajeynayaa arintan inay ka dhiidhin doonaan marka Benzema fadeexadaas uu cagaha kula jira waxaan leeyahay caqabad weyn ee tani ku noqon doonta guud ahaan daawadayaal qaybtan falanqayntan soo gabagabeynaya dhamaan waxaan u mahadcelinayaa daawadayaasheena sida wanaagsan oo la socday fikradihiina qaybta hoose ee muuqaalka noogu soo gudbiya Barcelona isbedelka ku dhacay kadib arinta isku casiray ninka la yiraahdo Jose Maria Bartomeu farsamada iyo kaamiradu waa Maxamed Saciid mid lamida muuqaalkan intii ku kulmi doona nabadgelyo